بالله أشهد أنه مخلوق وقاعدين يوسف برشاد وسيرت وقاعدين إبراهيم عبد الله إبراهيم حبنا وحنا الله يبصير الكلام فرسمة لك أنت يقول عاصمتها عاصمتها بسوق القصة اسمها وحنا الله يعلم كثير يكون بقول يا حكومة إن لصمية بصير برشاد يقولون تشري يقوى كلام سوق هذا سوق شيء يا رب بصير فرسمة حتى على هذا أوفر وحنا كلام كبرياء دكسيرة وصلنا برد ودولار حتى دولار السيرة يا تمين عدوا برشلونة تتغطى يرتاح مساكنته وبرشلونة جدا يعقل عام على جدي هلكا وحنا مساعدة برشلونة هي حكومة نبا العدي دكسيرة جدا هي والله العدي والله ستة بطمة على ستة صورة مقادم تانت حكومته هي مساعدة وكاو قلان وهي حكومته أكيد يصير برشلونة تصار صناعية لا يقدرون كأي دكتور وصلنا يصيروا دي مكنسة حكومته ما تبغى على الدكتور وأعطاه ضيق داية وبحث إنه برشلونة بلاش الله بيجوا إلى الآن السور كانوا ما بيشيء يعني وفق مواد ويروح برشلونة يقع ما بلاش مركز تسمى السور كل عندنا الألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحبرشادو وسير كان عصوب انتي لودي بي بقول كيف بقول بي يا وقال ودقات اسكولا بدن او دادسكايا شيء او اي مدو بدن ku jireen dhowr iyo 10 sanadood ay maamulayal ka ahaayeen oo ka wada ka celiyay oo dad kale oo cusub u geeyay oo talaabada koobaad oo qaaday wuxuu ka hadlay oo kale waxbarashada jaamacadaha dalka ayuu ku tilmaamay tukaan waanay ku jirtay waayo ayaga laba iyo saddex caruur ay ugu jiro jaamacadaha maalin weytaan aan imtixaamay wallaahi wax way qori karaan marka ugu horeysa kaana aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa wasiirka waxbarashada tallaabada horta la uu qaaday iyadoo golaheennaba uu ninka ahaa iminkaan nin buu halkaa ka nin buura ayuu ku marka waxaan leeyahay wasiir ninna ka hamranine dalkaagana u shaqee dadkaagana u shaqee abixi wadigu marka taagana assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh هذا والي ما كبح انت سنبورا سيدو صار باين استاذ اسماعيل ده محاور حتى ولا مرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والارض بغير عمد مضريال شربدوك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت qodobkan waxbarashada sida ka wada warqabnaba waxbarashada dalka maanta waxay maraysaa halkii ugu sareysay intii dalka Soomaaliya xataa loo jiray oo aqoonta intaa ee meel walba taala ma jirin muddooyinkii hore laakiin waxay moodaa inay siyaasad tahay oo siyaasadii hogaamin lahayd weli aan la awoodin sida iskuulaadka private-ka ah jaamacadaha private-ka ah madrasadaha private-ka ah oo dhammaantood ay laga dhigay dukaamo dad gaar leeyihiin waxay doonaan u dhigaan siday doonaan u dhigaan qiimaha doonaan ay qaadaan taa macnaheedu waxa weeye manhaj guud oo keliya oo dalku leeyahay oo ay ka midaysan yihiin waxbarashada sare iyo hoose ma jirto waxaa wasaaradda u soo jeedin lahaa ama xukuumadda guud ahaanteed in manhaj ay ka midaysan yihiin waxbarashada dalku in loo sameeyo hadday hoose tahay iyo hadday sare tahayba taasi waxay keeni kartaa marka in waxbarashada dalka iyo ardayda waxbarataaba ay wada socdaan waxaa laga yaabaa in imtixaanaadka dalka laga qaado in ardayda qaarna uu u fudud yahay ardayda qaarna uu ku culus yahay oo aanay horeba u soo dhiganin
oo ay isku class ma wada form baa lagu odhanayaa waxaan odhan lahaa markaa waxbarashada private-ka ah gacanta dowladda aad loogu soo celiyo sida laga warqabo waxa dhacda in imtixaanaadka dugsiyada dowladda iyo kuwa private-ka ah inay kuwa private-ka mar walba imtixaanka ku sameeyaan marka la soo dejiyo natiijooyin macnaheedu waxay odhan karnaa waxbarashada dowladdu way daciiftay oo waxba laguma dhigto u malayn maayo inay sidaa tahay malaa wax kalaa jira artaa balbada wasaaraddu arrintaas loogu noqdo haddii ay jirto inay waxbarashada dowladda dayda dugnataa ay daciif tahayna dee hala kordhiyo macallimiin tayo leh ha loo geeyo dadka masaakiinta dadka lacagooda haystaan ay ku tagaan dowladda dugsiyada private-ka ay ku wada tagaan ma haystaan waxaa ku soo koobaya intaa in siyaasadda waxbarashada wasiirku intoodii cabdillaahi ibraahim bare sida horta la sheegay wax badan buu ka qabtay in xukuumad ahaana lagu garab istaago wal ahaana aan ku garab istaagno wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxbarashada dalku soo baxay si loo baahan waxbarashada dowladda muhiima waxa kale oo loo baahan caalamada isticmaalka shirka kala duwan kuwa sare kuwa hoose balse ka wasaaradda waxbarashada ay wado in la bixiyo manhajka dalka taas oo mid lagu aad u dhawaadeen wasaaradda waxbarashada intii uu yimid wasiir cabdillaahi ayaa la tiri taas oo si loo baahan socdaa waxa kale oo ku daranahay in bal hoos loo eego danyarta dhigata iskuullada loo keeno si loogu keeno macallimiin tayana sidaas u baas waxay ka dhawaajiyey inaad moodeli kala sarreeyaan kuwa private-ka iyo kuwa dowladda in loo helo macallimiin taya leh dugsiyada dowladdu maamusho si ay isula mid jaan qaadaan labada dugsiyo kuwa private-ka lacagta laga qaadayo kuwana dowladda ee lacagta waxaan bandhignaa taas sida kale aad buu fiican ilaa waqtigeedii hore ilaa maanta maalinta wanaagsan ay jirto waana ku ogaadeen wasaaradda waxbarashadu in ay keentay inay bidisa manhajka oo ay socoto taasi waqti dhow la soo saari doono haddii la xidhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirguddoonka mudanayaasha ogeyaasha saxaafadda iyo dhammaan dadka sharaftaan ka soo qayb gashay golaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxbarashadu maanta way wanaagsan tahay meel wanaagsan bay noo maraysaa ilaahay maadi alxamdulilah rabbilcaalamiin manhajkii oo la midaynayo ama la mideeyida jaamacadihii oo la tayeynayo oo tayada ugu sarraysa la doonaya in la gaadhsiiyo iyo dugsiyadii farsamada gacanta oo la doonaya ayagana in la dhaqaajiyo oo ah qof ilaahay loogu mahadiyo si ay dhallinyaradii u hesho shaqooyin weliba farsamada waxaan soo kordhin lahay la kala duduwo oo farsamooyin kala duduwan la baro wasiirku uu dhaqaajiyey intii timartiisa uu dhaqaajiyey cabdillaahi ibraahim haqale hambaliyo baanu leedahay isagoo muddo badan la soo shaqeeyey golaha kuurkudoo waayaanimo badan iyo magaranaysaa waxyaalo badan haysta waxaa lagaa filayaa halkaa iyo kasii wanaagsan inaad gaadhsiiso waxaan ku leeyahay hambaliyo halkaa kasii wad waa ku garab taaganaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi rahmaani rahiim runtii waxaan ku jirnaa waxbarashadii anu laba qodob ba isku taagayo marka laga hadlayo horta siyaasadii barnaamijka waa kii jirta sheegay oonu ka qayb galay waxaan ku soo jiraa golaha oo wasiirada filayaa golayaasheena waa la keeni doono waxaa ka mid ahaa runtii aan isku taagi karayna waxa weeye in manhajkii waxbarashada sidii la sheegay la mideeyo